السلام عليكم صعب شرفت لك سو دوادا markale mowduucani maanta waxaan idin haynaa 10 cashar kaasoo lagu dhigin iskuulada 10 cashar kaasoo lagu dhigaynin xilliga iskuulka ama lagu barin xilliga iskuulka ma ogtahay inay jiraan casharo iskuulka lagu dhigin ama lagu baraynin casharada aan lagu barin iskuulka casharadaas waxaad ka baranaysaa ama ku barayo dhacdooyinka nolosha ku soo maro casharada aan iskuulka lagu barin waxaa kamid ah mid koowaad qaabkii aad u maareyn lahayd dhaqaalahaada ama lacagtaada sidaad la socoto iskuulka waxaa lagu dhigaa maadooyin la xiriiro dhaqaalaha sida xisaabta iyo financial management-da sidii aad u maareyn lahayd dhaqaalahaada laguma barayo iskuulka inkastoo lagu dhigo maadooyin la xiriiro dhaqaalaha qofna kuma barayo xilliga iskuulka qaabkii saxda ahaa ee aad u isticmaali lahayd xoolahaada ama dhaqaalahaada qaabka saxda ah oo lacagtaada u isticmaali lahayd qofna iskuulka kuma barayo mid labaad caafimaadka waa aasaaska jiritaanka qofka bini'aadamka ah lagu baraa maadooyinka sida sayniska kuwaasoo si guud ardayda looga dhigo caafimaadka waxaa loo baraa si guud sida fitamiin sida borotiinka qofka u baahan yahay calories u baahan yahay iyo carbohydrate qofka u baahan yahay si guud ayaa loo baraa laakiin ilaa iyo hadda dad yar ayaa garanayo cunooyinka u wanaagsan caafimaadkooda markii laga reebo dad yar kuwaasoo qaybta caafimaadka iyo macallimiinta dadka tababara sida macallimiinta dhiga jiimonka iyo dadka takhasuska markii laga reebo dad yar ayaa garanayo cunooyinka caafimaadkooda u wanaagsan iskuulka lagu barto maadooyin caafimaad qofna sida saxda ah uma barayo ardayda maadooyinka la xiriira caafimaadka mid saddexaad inay farxadu keenin in la sameeyo xoolo badan inay farxadu ku jirin in la sameeyo xoolo badan dad badan waxay aaminsan yihiin in horumarka waxbarashada inay isku xiran yihiin horumarka waxbarashada iyo xoolo badan ama dhaqaale badan inay keenayso taasi arrin sax ah ma ahan intaan soo sheegnay nolosha muhiim ayay u yihiin sababtoo ah waxay ku furayaan fursado cusub balse farxadu ma keenan farxadda ma ku xirno in xoolo badan la sameeyo marka xilliga iskuulka saas laguma barayo xilliga iskuulka ardayda saas looma baro si ay u kala fahmaan farxaddu inaysan keenaynin ay u fahmaan wax farxadda keenayo iyo wax kale midda afraad suuqgeynta naftaada inaad suuqgeysid naftaada midda afraad waxaa waaye inaad suuqgeysid naftaada markaad joogto iskuulka inta badan waxaa lagu baraa inaad dadaasho si aad horumar u gaartid ama aad u guuleysatid balse suuqgeynta naftaada iskuulka inta badan waxaa lagu baraa inaad dadaasho si aad u guuleysato ama horumar aad ugu gaarto nolosha balse laguma baro inaad naftaada suuqgeyso waxaa muhiim ahayd in qof kasta la baro qaabkii naftiisa u suuqgeyn lahaa ama qaabkii naftiisa u beecin lahaa waxaan ula jeednaa qaabkii naftiisa u horumarin lahaa amase u tusi lahaa awoodda ama talentada uu qofka leeyahay qaabka naftaada u soo saari lahayd sidaa la socotid qof kasta wuxuu ku mashquulsan yahay qof kasta wuxuu ku mashquul shaqadiisii markii laga bilaabo madaxweyne dhakhtar pilot macallin qof kasta wuxuu ku mashquulsan yahay danihiisa khaaska ah qofna adintu ku soo raadiyo kuma dhaxayo maxaad taqaanaa amase maxaad qaban kartaa waxaa loo baahan yahay naftaada inaad meel ka soo bixisid inaad naftaada suuqgeysid adiga ayaa laga rabaa marka taas laguma barayo xilliga iskuulka marka waxay ka mid tahay waxyaabaha aan la barin ardayga xilliga iskuulka laakiin loo baahnaa in la baro midda shanaad inaad garato ama fahanto waxa aad nolosha ku hanweyn tahay waxa nolosha aad rajeynayso rajada saxda ah nolosha aad ka leedahay inaad fahanto waxaa la wada bartaa hal buug iyo maadooyin isku mid ah ayaa loo wada dhigaa ardayga laakiin waa in la gartaa in dadka oo dhan aan isku mid ahayn ama isku hadaf ahayn qof kasta uu leeyahay hadaf u gaar ah ama uu rabo wuxuu mustaqbalka noqon lahaa qaas ay u yihiin taasi iskuulka laguma barayo ardayga midda lixaad oo aan iskuulka lagu barinin waxaa kamid ah sidaa u fahmi lahayd guuldarro kugu timid ama helasho noloshaada guuldarro kugu timid
ama ku heleesho noloshaada. qaabka aad u maareen lahayd guuldarro kugu timid. sidaad u maareen lahayd guuldarro kugu dhacday ama ku timid noloshaada. ardayda inta badan, tusaale ahaan xilliyada imtixaanka ama arrimo hataa ka baxsan iskuulka, balse lama baro qaabkii ay u maareen lahaayeen guuldarrada ku timid ama ku dhacday. waxaa kali oo la baray qaabka ay ugu dabaaldegi lahaayeen guulaha ay ka gaaraan xilliyada iskuulka ama imtixaamadooda. laakiin guuldarrada waa wadooyinka loo maro guusha. marka waxaa loo baahnaa in la baro qaabkii ay u maareen lahaayeen mise ay u xallin lahaayeen guuldarro ku imaato noloshooda. midda toddobaad, buugga iskuulka ma ahan aqoontii oo idil. buugga iskuulka lagu dhigo ma ahan aqoontii oo idil. waxaan ula jeednaa buugga iskuulka lagu dhigo ma koobi karo wax kasta oo la rabay inuu qofkan barto, kuma koobno. waxyaabaha qaar waxaa laga bartaa dhacdooyinka nolosha kusoo maro amase wax ka baxsan waxyaabaha buugga ku qoran ayaa laga bartaa, real life-ka ayaa laga bartaa. marka waxaa loo baahnaa in ardayda la baro inka badan casharada iskuulka wax ka badan, sababtoo ah buugaagta iskuulka waxaa soo diyaariyey dowladda ama maamulka halkaasi ka jiro. haddaad intaas keliya aad baratid waxaa wanaagsan in ardayga la baro waxaa wanaagsanaan lahayd in ardayga la barayo waxyaabo ka baxsan buugaagta xilliga iskuulka. midda sideedaad, waxbarashada ma dhammaato intaad nooshahay. midda sideedaad taasoo la barin qofka xilliga iskuulka waxaa ka mid ah inay waxbarashada dhammaanaynin intaad nooshahay. waxbarashadu ma dhammaato ama way soconaysaa intaa nafta kugu jirto. intuu qofka bini'aadamka jiro waxbarashadiisa ma dhammaanayso. iskuulka la dhameeyo micnaheeda ma ahan waxbarashadii oo la dhameeyey. inta badan xilliga iskuulka ardayda waxaa loo sheegaa inay waqti kooban ay waxbarashadooda ku dhammaynayaan. taasi waa qalad, sababtoo ah waxbarashada ma dhammaato. qofku si uu la jaanqaado horumarka adduunka ku socdo waa inuu bartaa markasto inuu wax cusub noloshiisa kusoo biiriyaa. midda sagaalaad oo iskuulka lagu barin ardayga waxaa ka mid ah hogaamiye inuu noqdo. qaabkii loo hogaamin lahaa hogaamiye waxaan ula jeednaa inuu noqdo loo hogaamiyo ilaa aad ku dadaasho oo ku dayato hogaamiye aad jeceshahay, si aad u muujisid inaad awood u leedahay inaad noqoto hogaamiye wanaagsan. iskuullada intooda badan ardayda laguma baro hogaamiyaha wanaagsan, tayada hogaamiyaha wanaagsan. sidaa darteed waa sababta aad u aragto dad badan oo wax bartay, waxbarashada heer sare ka gaaray, balse aan ku wanaagsaneyn dhanka hogaaminta. marka hogaaminta qaabka ugu wanaagsan oo qofka lagu bari karo waxay tahay qaab practical ama qaab practical. midda tobnaad, qaabkii guriga loo maamuli lahaa. maamulka guriga sidaan la socono, qaabka loo maamulo guriga laguma baro ardayda iskuulka, balse waxaa la wanaagsan in ardayda xilliga ay dhigtaan iskuulka in lagu baro qaabkii ay guriga, sababtoo ah in la baro shaqada guriga waa muhiimada koowaad ee nolosha. qofka si kasta oo dhaqaale u haysto markasta wuxuu u baahan yahay inuu takhasus ama aqoon u lahaado qaabka guriga wax loo qabsanayo ama qaabka guriga shaqadiisa loo qabsan karo. halka ayaan kusoo gabagabeynaynaa mowduucani maanta. haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar, la wadaag asxaabtaada, furo gambaleelka si aysan ku dhaafin muuqaalada si maalinlaha usoo gelino. waana ku mahadsantihiin daawashadeena iyo fikradihiina wanaagsan.